بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda halkan joogta. waxaan runtii ilaah uga baryayaa ummadda Soomaaliyeed maadaama aan ku jirno bishii barakeysaneed ee Ramadaan gaar ahaan tobankii ugu dambeeyay in Ilaahay naga aqbalo amalka wanaagsan amaasha saalaxa oo Ilaahay noogu dimi dhaafo. sidoo kale waxaan ummadda Soomaaliyeed ilaah uga baryaa inuu ka qaado cudurkan dhibaatada badan adduunka u geystay Soomaaliyana saameeyay COVID-19 in Ilaahay naga dul qaado. intii dhimatana Allah u naxariisto, inta xanuunsanna Allah bogsiiyo. intaas kadib waxaan rabaa oon halkan idinku yeeray inaan shirkan jaraa'id uga hadlo saamaynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsiga Soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha gaar ahaan ganacsiga. sida aan dhammaantiin aad ka warqabtaan ama la socotaan dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada markii ugu horeysay ay heshay kiiskii koowaad 16 Maarso oo kiiskaas la xaqiijiyay waxay qaaday tallaabooyin runtii lagu xiraayo isu socodkii dadka gaar ahaan lagu joojinayo duulimaadyadii caalamiga ah kadibna kuwii gudaha ayaa la joojiyay. waxaa kaloo runtii la xanibay dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii dadka iyadoo mar walba la qaadanayo talooyinka wasaaradda caafimaadka. marka saamaynta caafimaad ka sokow cudurkani wuxuu runtii saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka iyo ganacsiga oo hoos u dhac weyn u keenay. Soomaaliyana waxay ka mid tahay caalamka iyo meelaha uu saameeyay dhaqaale ahaan uu aad u saameeyay gaar ahaan ganacsigeena. sidaas darteed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare mudane Xasan Cali Khayre waxay dadaal aad weyn ama juhdi aad weyn ay ku bixiyeen sidii looga hortagi lahaa cudurkan faafitaankiisa isla markaana loo xakameyn lahaa si loo yareeyo dhibaatada uu u geysanayo ummadda Soomaaliyeed. waxay kaloo juhdi weyn ku bixiyeen runtii sidii saamaynta dhaqaale iyo hoos u dhaca dhaqaale ama ganacsi cudurkan uu keeni karo shacabka Soomaaliyeed sidii loo yareyn lahaa hadba intii awood weyn ay tahay. waan ognahay dawlad ahaan dawladda Soomaaliyeed waa dawlad ka soo kabsanaysa runtii dhibaatooyin muddo dheer muxuu ahaa soo aafeeyay dalkuna hadda ayuu wuxuu ku jiray dib u soo kabasho iyo dhaqaalihii dalka iyo ganacsigii in dib loo kobciyo. xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo ka jawaabaysa arrintaas ayay waxay canshuur dhaaf u samaysay qaybo ka mid ah badeecooyinka dalka oo laga dhaafay 100%. qaybo kalena waxaa laga dhaafay muxuu ahaa oo canshuur dhaaf 100% la sameeyay sida bariiska iyo timirta. waxaa kaloo canshuur dhaaf eedana muxuu ahaa ama canshuur dhimis 50% ah lagu sameeyay qaybo kale oo ka mid ah muxuu ahaa burka oo muxuu ahaa badeecadaha oo ka mid yihiin burka iyo saliidda. taasina waxaa loo arkayay inay yihiin waxyaabaha daruuriga ah runtii shacabka Soomaaliyeed noloshooda taabanaya. ujeedada canshuur dhaafku runtii waxay ahayd in ganacsatada loo fududeeyo in badeecadahaas shacabka Soomaaliyeed si sahal ah ay uga faa'iideysan karaan oo si sahal ah u heli karaan oo muxuu ahaa maadaama ay shacabka noloshiisa ay aad u taabanayaan. marka waxaa loo sameeyay canshuur dhaafka waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan iyadoo markaa fooda nagu soo haysay bisha Ramadaan oo hadda dhammaad ku dhow. runtii wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu iyadoo kaashanaysa laamaha kale dhaqaalaha dawladda iyo ganacsatada iyo bulshaweynta Soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haysay sidii dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo saamaynta uu cudurkan COVID-19 uu ku yeelanayo nolol maalmeedka dadka Soomaaliyeed. runtii mar walba isha ayay ku haysay waana muxuu ahaa si joogto ah ayayna ula socotay.
horena waxaan uga bixinay shirar muxuu ahaa kulamo ganacsada aan la yeelanayno qaybaheeda kala duwan saxaafadan aan la yeelanayno runtii ujeeddadii marka laga lahaa canshuur dhaafkaas waxay ahayd in lagu haayo muxuu ahaa raashinka daruuriga ah halkiisa lagu haayo ama hoos loo dhigo oo muxuu ahaa uu hoos u dhaco meeshii uu maxaa la dhihi jiray sicir barar uu ka samayn lahaa arrintaas runtii waxaa nasiib wanaaga oo rabaa maanta shacabka Soomaaliyeed iyo saxaafadda intaba inaan la wadaago in raashinkii qaybihii daruuriga ahay ama wax ku oolka ahay dawladdu ay u samaysay canshuur dhaafka iyo kuwii ay u samaysay canshuur dhimista intaba maanta laga dareemi karo hoos u dhac ma ka hadlayno muxuu ahaa COVID-19 wixii ka horreeyey laakiin waxaan ka hadlaynaa markii sicirku uu sare u kacay oo muxuu ahaa alxamdulilaahi badeecadaha intooda badan ay dadku ay muxuu ahaa ay gaareen qiimo aan lagu iibsan karin marka runtii arrintaasi waxaa ka soo baxay waxay noqotay mid miro dhala waxaana ka soo baxay maxaa la dhihi jiray alxamdulilah wax dadka Soomaalidu u aayaan bariiska oo runtii loo sameeyey boqolkiiba boqol runtii wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 13 timirtuna waxay hoos u dhacday boqolkiiba 4 halka burku oo markaa maxaa la dhihi jiray alxamdulilah uu sameeyey halkiisa uu joogo ama wax yar oo hadda aan aad u weyneyn ay ku darsameen taasna waxaa keenaysa baahida loo qabo burka oo aad shacabka Soomaaliyeed uu isticmaalo saliiduna sidoo kale boqolkiiba 24 ayay hoos u dhacday marka waxaan runtii aan rabaa inaan la wadaago shacabka Soomaaliyeed in arrintaas canshuur dhaafkii dawladda iyo tallaabooyinkii ay qaaday ay noqotay mid miro dhala waxaana runtii ammaan mudan ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo ganacsada Soomaaliyeed dhammaanteed oo u damqaday dadka Soomaaliyeed dawlad ahaan nala fahmay sababtii canshuur dhaafka loo sameeyey inaysan ahayn in macaash laga raadiyo sababtu ay ahayd in shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ah loo daneeyo oo maxaa la jiray alxamdulillah oo qiimaha muxuu ahaa waxyaabaha noloshooda taabanaya ama badeecadaha noloshooda taabanaya hoos loo dhigo ama halkooda runtii lagu haayo waxaan kaloo ganacsada ku amaanaynaa runtii sida ay uga qayb qaataan ka hortagga cudurkan COVID-19 oo isaguna muxuu ahaa ay kaalintooda ay ka qaataan hadday noqon lahayd xagga wacyigelinta iyo hadday noqon lahayd xagga muxuu ahaa inay dawladda kala shaqeeyaan sidii ascaartu aysan kor u kici lahayn iyo sidii hal abuur ay u samayn lahaayeen intaba waxaa kaloo jira runtii waxyaabaha dadku uu isticmaalo ama cudurkan looga hortago oo muxuu ahaa qalabka nadaafadda ay ka mid yihiin qaybo ka mid ah weli way kacsan yihiin taasna waxaa sabab u ah suuq ay aad ugu yar yihiin oo markaaba ay aad u yaraayeen marka kicitaankii ay kaceen iyo adduunyadii oo xirmay iyo duulimaadyadii iyo isu socodkii oo joogsaday ayaa sababtay taasna laakiin waxaan u malaynaa qaybo badan oo looga maarmi karo ayaa iyadana jira oo muxuu ahaa dadku ay isticmaali karaan sida saabuun muxuu ahaa oo ama dalkeena warshadaheena lagu soo saaro ama saabuunteena ama muxuu ahaa ama qaab kale oo nadaafadda muxuu ahaa runtii lagu daryeeli karo oo aad u fara badan marka runtii waxaa kaloo runtii aan rabaa inaan idinla wadaago in deymankii ay bangiyada ka qaadan jireen maadaama qaarkood ay bunuugta ay la macaamilaan waxaa kaloo runtii inay iska bixiyaan muxuu ahaa mushaarooyinkii shaqaalaha iyo inay iska bixiyaan qidmooyinkii intaba way ku adkaatay ganacsiyadeena yaryarka ah waxaan runtii taas loo sababay karaa maxaa la dhihi jiray alxamdulillah maadaama isu socodkii dadka uu istaagay maadaama dadkii maxaa la dhihi jiray talada ugu weyn oo la sii karo ay tahay inay guryahooda joogaan ganacsiyo badan inay xirmeen maanta ayaa inoo muuqata oo dadka danyarta ah intooda badan ama muruqmaalka ama haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhuhu ay gacanta ku haayeen maadaama ay yihiin gabdhuhu ganacsiga ugu badan boqolkiiba 60 ama 70 ay gacanta ku haayaan qoysaska Soomaaliyeedna ayagu noloshooda ay alxamdulillah mas'uul ay ka yihiin intooda badan
marka waxaa saameyntaasu dhinacyo badan ay leedahay waxay saameysay xawlaadihii ayay saameysay waxay saameysay badeecadihii dibadda dalka nooga imaanayay oo sidii la raba aan u imaanayn waxay saameyn ballaaran ku yeelatay dadka Soomaaliyeed oo danyarta ah oo dibadaha ku xiraa inta badan in dibadda laga soo biilo ama qurba joogtaynu ay dibadda lacagaha uga soo diraan taasoo maxaa la jiray meelaha qaar wadamadii maadaama ay xaniban yihiin ama muxuu ahaa ama isu socodkooda ayaga naftooda ay istaageen halkaas ama xawaaladihii aysan shaqaynayn intooda badan dibadda ay taasina inay keentay in hoos u dhac dhaqaale oo dhinac walba ah ayay keentay marka hoos u dhacu wuu ballaaran yahay laakiin annaga arrinta aan maanta halkaan rabo inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago waxa weeye waa arrinta ascaarta oo aan rabnay dawladdu ay juhdi weyn ku bixisay dawladdana runtii lacago badan oo heli lahayd ayaa halkaa uga baaqatay laakiin lacagtaas waxay gashay shacabka Soomaaliyeed ayay lacagtaas dib u galaysaa ayaga noloshooda muxuu ahaa runtii lagu kabayaa waxaan rajaynaynaa marka ganacsatada wali aan ka codsanaynaa inay halkaas ku hayaan badeecada wixii hoos u dhac intay sameey karaan ay sameeyaan intii la jabi kara la jabiyo sidii shacabka muxuu ahaa loogu naxariisto looguna damqado wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu runtii waxaa kaloo soo wajahay ka wasaarad ahaan in shahaadooyinkii ama laysinadii ay bixi jirtay ayaguna hoos u dhac boqolkiiba 60 ay hoos u dhaceen runtii dhaqaalihii halkaa ka soo xaroo jiray oo dawladda uga soo xaroo jiray taasna waxaa sababaysa ganacsatadii oo runtii ayaguna ama guryaha ku xaniban oo ku xiran ama maxaa la jiray ama ganacsi cusub inay abuuraan aysan waqtigan aysan qaarkood intooda badan aysan suuragal u ahayn marka hoos u dhac dhinac walba ayuu ka jiraa runtii gabagabadii waxaan rabaa inaan maxaa la jiray qiimuhu isbeddelka la dareemayo oo muxuu ahaa aad runtii hoos u dhaca la dareemayo inuu halkaa ka sii socdo wasaaradduna waxay magacowday guddi arrimahaas ka shaqeeya oo isugu jira agaasimayaasha waaxyaha iyo la taliyaasha oo la soconaya hadba COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo dhaqaalaheena gaar ahaan xagga ganacsiga waxaana si dhow ula shaqaynaa wasaaradaha ayaguna dhaqaalaha muxuu ahaa ka shaqeeya iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo ganacsatada guud ahaan waxaan marka ugu baaqaynaa ganacsatada yar iyo kuwa dhexe maadaama saameyn ballaaran uu ku yeeshay COVID-19 waxaan u baaqaynaa runtii oon halkaan rabnaa inay il naxariista ku eegaan bangiyada kuwa deynta ka qaatay in bangiyadu runtii ay dib u dhigaan deynta ganacsatada yar maadaama aysan iska bixi karin cabasho badanna halkaa ay naga soo gaartay marka waxaan ka codsanaynaa runtii bangiyadeenna oo ayagana naftooda muxuu ahaa uu saameeyey COVID-19 oon ognahay oo saameynta dhinacooda ka qaba haddana inay u naxariistaan ganacsatada yar ee maanta suuqi ka baxay oo runtii alxamdulilaahi aan iska dhiibi karin deymankii lagu lahaa in dib loogu dhigo oo loo dhimriyo waxaan marka isugu dardaarmaynaa maadaama alxamdulilaahi dhammaan ugu dambeyn wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu waxay si joogta ah runtii ula wadaagi doontaa shacabka Soomaaliyeed iyo runtii saxaafadda hadba xaaladda uu marayo ganacsiga dalka gaar ahaan warshadaha iyo warshadeynta iyo wax soo saarka iyo ganacsiga intaba wixii xoga waa la wadaagi doonaa hay'adaha kala duwan ee warbaahinta waxaana ku heli doontaan si qoraallo ah iyo si alxamdulillah war saxaafadeedii ah iyo baraha bulshada intaba waa ka heli doontaan tan kale waxaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantiisba aan ku dhiirgelinaynaa in dhibaatadan runtii loo bedelo fursado waxaa fursado loogu bedeli karaa runtii inaan wax soo saarkeena aan xoojino gaar ahaan xagga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga iyo maxaa la jiray hal abuurka iyo wax soo saarka intaba inaan xooga saarno sababtoo maanta waxa weeye dal walba waxaad moodaa oo gaar ahaan wax soo saarka gudaheena sida miraha dalkeena ka soo go'o hadday noqon lahayd galley hadday noqon lahayd masego iyo hadday noqon lahayd qaybaha kale muxuu ahaa wax soo saarka
intaba inaan xoogga saarno waxa dalkeenna ka soo baxa iyo wax soo saarka dalkeenna iyo warshadaynta dalkeenna wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhuna arrintaas qayb ay ka tahay waxaan ku howlanahay oon hadda gacanta ku haynaa barnaamijyo runtii ganacsatada yaryarka ah wax loogu qabanayo gaar ahaan xagga agrotechnology ama muxuu ahaa wax soo saarka beeraha kaasoon rabno in dalkeenna runtii warshado yaryar oo xagga teknolojiyada oo adduunyada la jaan qaadi kara iyo wax soo saarka gudaha xagga beeraha in lagu dhiirigeliyo waxaa kaloo wasaaraddu runtii ay gacanta ku haysaa barnaamij isagana xagga wax soo saarka oo muxuu ahaa oo iska kaasho doonaan wasaaradaha kale muxuu ahaa sida wasaaradda beeraha iyo tan kalluumaysiga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tan shaqada iyo arrimaha bulshada iyo dhammaan wasaaradaha wax soo saarka si xoogga loo saaro oo muxuu ahaa dalkeenna khayraadka uu leeyahay looga faa'iidaysato dhibaatadaana fursad loogu bedelo maadaama dalkeennu boqolkiiba 80 iyo in ka badan aan ku tiirsanayn wax dibadda nooga yimaado hadday noqon lahayd cuntooyinka aan hadda sheegnay oo qiimahooda aan dhibaynay in dalkeenna aan ku soo saarano hadday bariis noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd maxaa la jiray qamadi iyo hadday noqon lahayd waxa aan dalka dibaddiisa ka keensanno wax ka badan inaan dalkeenna gudaheena ku soo saarno taasna waan samayn karnaa arrintaasna hadda tallaabooyin fiican iyo diilooyin fiican ayaa ka jira oo wax soo saarka waxaan filaynaa in baaqyadii hore aan u soo jeedinay ama madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu iyo wasaaraddu intaba ay soo jeedisay oo shacabka Soomaaliyeed lagu booriyay wax soo saarka gudaha in xoogga la saaro qorshayaasheenana ka mid ahayd markii shuruucdan iyo la dhamaystiro dhammaantood oo ay ka mid yahay maxaa la jiray hay'addii tayadhowrka iyo sharciga shirkadaha iyo dhammaan waxay ahayd dalka in investment lagu sameeyo wax soo saarka dalka la xoojiyo marka taasna waxaan rajaynaynaa in COVID-19 isagana uu noo noqon doono inuu noo noqon doono muxuu ahaa cashar uu noo noqon doono oo aanan wax dibadda laga keeno inaysan dalkan aysan u noqonayn maxaa la jiray aysan u noqonayn horumar aysan u noqonayn oo horumarka uu ku xiran yahay inaan dalkeenna gudihiisa iyo aan ka faa'iidaysano wax soo saarka dalkeenna ceegaaga oo aan gudaheena aan fiiranno wixii aan qabsan karno ganacsatada Soomaaliyeedna inay dalkooda maalgeliyaan oo muxuu ahaa halkii ay dibadda wax ka keeni lahaayeen waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa runtii aan rabaa inaan warshadaha iyadana saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay runtii maadaama alaab badan oo dibadda uga imaan lahayd runtii aysan suuragal ahayn inay ka timaado waqtiyada qaar isku xir muxuu ahaa adduunyadii isu socodkii adduunka oo yaraada ogeed marka iyadana waxaan rajaynaynaa inay runtii ka soo kabsan doonaan meelaha marka aan xoogga saari doono ayay ka mid tahay in dalkan dib loo warshadeeyo gaar ahaan warshadaha yaryarka ah idinkana aad ayay u mahadsantihiin bahda saxaafadda aad ayaan idin soo dhaweynayaa aad ayaan u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.